maqashaan barnaamijkii martida toddobaadka ah oo nooga barateen oo maqal ahaan jiray idaacadda iftiin f m iliska ummadda toos ugu bixi jiray ayaa rabnaa hadduu alla yihahdo inaan u bedelno qaab muuqaal ah toddobaadyada soo socdana si toos ah baraha bulshada idaacadda ay leedahay sida facebook aad uga bogan doontaan barnaamijka ugu horeeya qaabka muuqaalka ah ee martida toddobaadka ayaa martida aynu ku bilaabi doono oo ah marti aan idin soo xulinay arrimaha aynu kaga hadli doonana ay aada xogogaal ugu yihiin ayaa waxa ay kala yihiin martida haddii aan ku hormaro ee dhankayga bidix haddaan ka bilow saalax cabdi sheekh ayaa inoo fadhiyo oo ah qoraa sidoo kale arrimaha bulshada ayuu ololeeyaa waa bare jaamacadeed mid ka mid ah jaamacadaha dalka ayuuna wax ka dhiga sidoo kale dhanka iyo gacantaydii midig waxaa fadhiyay muheshimiwa maxamed xuseen qaras oo ah xildhibaankii hore ee bariga mandheera arrimaha gobolka aada uga faallooda barnaamijka maanta aynu ka hadli doonana waxa uu ahaan doona hadduu allaha yirahdo aynu ku qaada dhigi doona arrimaha waxbarashada dalka waa xaaladda waxbarashada dalka isbedelada kala gedisan ee waxbarashada dalka lagu sameeyey iyo weliba halka aynu ku soconno ayaan barnaamijkayga maanta kaga doodi doonaa haddii marka hore dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijka maasha allah haddii aan ku hormaro mr saalax cabdi sheekh xaaladda waxbarashada dalka hadda maxaad ku qiimeyn kartaa waqti hadda la joogo asalaamu calaykum waqtiga hadda la joogo horta transition period la jooga systemkii hore oo 824 waa laga soo way weli waa socdaan laakiin waa la bedelahayaa system cusub oo competency based curriculum la bilaabay wax badan laga sheegay oo hadda aan soo macnaha hadda aan soo koobi karin laakiin sababta loo bedelin waxay ahayd inaad ku filneen waxa loogu baahan yahay waxbarashada dalka hadda marka hadda waqtigaan joogna waa waqti oo transition ah waqti oo isbedel ah waa gartay mr maxamed xuseen dhankaaga xaaladda waxbarashada ee dalka ka waran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku faraxsanahay in arrintan aad orja soo celisaan maadaama yani dadweynaha ay u baahan yihiin arrintan tacliinta in wax badan laga hadla sida uu sheegay doctor saalax waa xaaladda hadda jirta oo maaragtay bedelkan hadda socda ayaa jira waxaan filayaa 3 sano ama 2 sano kadib in la bilaabi doono programkaas maaragtay yani imtixaankan hadda oo KCPE la joojin doono kadibna nidaamkan cusub waxaad moodaa dadka mutacalimiinta arrinta aad bay ugu doodayaan waxaad moodaa inay qaar ay leeyihiin nidaamkan cusub oo CBC ga ah uma fiicna waxbarashada dalka laakiin waa arrin hadda aniga aan laga fiican yahay sida saalax qarata ma taqaan arrinta qafaaynteeda ku fiican laakiin transition baa lagu jira waxaana rajaynaynaa in insha allahu ay faa'iido u keeni doonta ardaydeena ma taqaanaa mustaqbalka arrimahan kala guurka la xiriira dhanka iyo xaaladda waxbarashada dalka su-aalo fara badan baan iska weydiin doonaa dad aada uga soo horjeeda ayaa jira sida nat oo ururka macallimiinta qaran ee dalka wilson sosiono hogaamiyo balse waxaan rabaa inaan milicsano isbedelada dhanka waxbarashada lagu soo sameeyey tan iyo dalka markuu xornimada u qaatay 1963 ilaa nidaamkii haddaan kala danin saddexaad oo kale inuu yahay ayaan filayaa maaqaani mr saalax inuu ani ila mid yahay mr maxamed waxaan filaya inaad soo martay nidaamkii hore oo 7423 inuu ahaa ama inaan dhammaanteen aan isla wada nahay nidaamkan kale 844 haatan waa midkan kale 233 aan u guurayno marka waxyaabaa isbedelada lagu soo sameynayay dhaliilaha loo jeedinaya nidaamka waxbarashada isku mid ayay yihiin hadday noqoto dhanka iyo suuqa iyo shaqada iyo shaqa abuurista dhanka haddaad milicsato mr saalax maadaama weli waxbarashada aad ku jirtid warbixin kooban naga sii bar nidaamkii hore 7423 844 iyo midka haddaan u guurahayno markaad eegtid waxyaabaha looga guuraya waa isku mid oo ah new skills hadday noqoto job opportunity ama new technologies ka waran horta sanad kasta maxaa lahaa marka waqti la joogo isbedel waa fiican yahay macnaha wax isbedelaa technologiga isbedelaysa waxbarashada nafteeda cilmiga isbedelaya oo maxaa lahaa casri sii noqonaya so isbedel ma xuma laakiin systemka u horreeyey oo lagu bilaabo 1963 waxaad ahaa system ku bilowday waqti dowladda ay yar tahay waqti qof kasta oo soo dhameeya maxaa la dhahaa kasoo qalin jibiya secondary ama primary hataa aad shaqo heli kara system asaga badi waxaad ahay academic aad ahaa subjectayaasha la qaadan jirin waa yaraayeen ilaa 4 subject la qaadan jiri imtixaanka marka systemka lagu bedelay waxaa 844 ilaa 8 maadaan la qaadanay maxaa la secondary level 8 ugu yareed ilaa 12 la qaadanay marka isbedelka marka waxaa waaya waxaa laga rabaa farta soo socoto waxaa waaya CBC
focuska ama shaashadda waxaa la saarayaa farsamada maanaa qofkii inaad gacanta wax ku qaban kara ama skill oo ah ama skill oo technology ama skill oo farsamo caadi ah oo maxaa la dhahaa sidii carpenter maxaa la dhahaa qofka guryaha dhisaan ama kuwa maxaa la dhahaa korontada hagaajiyaan waxbaa nooca ah systemka waxaa kaloo ku beesgaraysan yahay in la bedela oo noqoto qofkii asagoo secondary ku jira specialization hagaajiya macnaha aad noqon karaa waxaan rabaa inaan noqdo daktar kan kale waxaan rabaa inaan noqdaa weriye macnaha waxaad la heli karaa adigoo secondary la joogo waxaa kaloo dhacday in dalka waxaa isbedelahaya habka siyaasadda isbedelhaysa siyaasadda markaa isbedeshay qolo kasta oo marka qabsata ideology tadaa la imaada so ideology hadda socdo oo c b c ga waa wax la socdo jubilee iyo dadka hadda haysta awoodda haysta dad badan dhaliil ka sheegaya arrimahan oo c b c ugu horreysa naga diyaar ma u nahay system expensive waay macnaha system ma aha raqiisa maaha system waxaad u baahan yahay materials ama alaab oo zaa'id qaali u ah oo dad badan oo maxaa la dhahaa degan tuulooyinka iyo meelaha oo dawladda ay weli ay gaarin dalkeena oo masala dhinaca ka imaadnay iyo meelo badan oo kenya ka mid ah inayba garanaynin si habkii loola dhaqmi lahaa systemka waxaa kaloo jirta wax badan oo systemka waxay ku xiran yihiin internetka iyo digital system hadda socdo ay ku xiran yihiin waxaana dadka oo maxaa la shacabka naftooda kamana dhacsan marka isbedelka noocaasi ayaa socda ay kula bedelayaan hagaag mashmaa adiga rabaa inaan ku siiyo maadaama arrimaha siyaasaddan aad kusoo jirtay inkastoo aad maalmahan aad ka fiirisay ama sanadii dambe baan dhahay arrintan oo ah waxbarashada in xisbiga tahay jubilee ama la siyaasadeeyo saameyn waxay yeelan kartaa dhanka waxbarashada marka la eego horta aniga kulleyba waxaan u malaynaya sulayman arrintan in la siyaasada horta ma fiican tacliinta waxaa weeyaan arrimaha mataqaana inay loo daaya maarata dadka expertska maaragtay oo mutacalimiinta oo khubarada waaweyn inay wadaan oon siyaasaba la gelin baa fiican waan ka xubayna kaa dhex gala ma kuu muuqata in la siyaasadaynayo way muuqataa ma og tahay nin walba wuxuu jecel yahay kii ka horreeyay inuu maarata ceeb ku sheega oo ilaa systemkii hore ayaa dhib ciladan u keenay maarata dhalinyarada inay shaqo abuuri waayaan waa jirtaa sida uu maarata Dr. Saalax sheegay horta tacliintii systemkii hore oo ahay 7432 ahay wuxuu ku beesgaraysnay maaragtay maadaama dawladdii xukumi jirta Kenya ay ahayd maaragtay ingiriiska ay ahayd systemkana waa wax laga maaragtay laga maamuli jiray oo laga isticmaali jiray ingiriiska 844 waxaad moodaa inuu mataqaana ku salaysan yahay systemka ay isticmaalaan maraykanka kan hadda c b c aniga kulley ma garanayo ciduu la socdo systemka cadda oo IGCC waxay laga bedelay marka adiga kii ingiriisku uu dhow yahay laakiin fikrad ahaanta ma xumo inay mataqaanaa dadkii la baro maharaad maaragtay yani aqoon skills in la baraa way fiican tahay hase ahaatee horta intaanan la bilaabin systemkan cusub c b c ga ah macallimiinta diyaar mu yihiin dadka hadda aad arrintaa mataqaanaa ugu soo horjoodo oo cambaaraynahay oo la dagaaltamay waa macallimiinta maxaa hadda naat oo kalaata waxaa weeyaan waa boodiga maaragtay ama hay-adda mataqaanaa u xilsaaran macallimiinta danahoodii iyo arrimahoodii mataqaanaa marka macallinka haddaa la yidhaahda wuxuusan aqoon u lahayn awood uusan u haysan haddii la maarata diiwaangeli dhib bay ku noqonaysaa waa macnaha waxay ku noqonaysaa wax cusub oo yani asagaa u baahanaya tababar cusub asagaba ardi noqonaya marka uma baahna marka maarata harsaa kulaata in la dedejiyo waxay ahayd tababar iminka la siiyo in macallimiinta la diyaariyo in dadka laga dhaadhiciyo inaan lagu xirin mataqaana xilliga siyaasadda qofka dawladda hadda madaha haya ama xisbiga haya yaan lagu xirin maarata interestgeeda oo haddaad tidhaahdid aniga muddo 5 sana ku jiro ayaa maaragtay aan ku jiraa dawladda ayaan hayaa ama 10 sano waa in arrintan la diiwaangeliyaa asigoon u aabiyeelaynin in ay macallimiintii iyo qalabka la isticmaala kulli ay wada diyaar noqon karaan marka arrintaas ayaa muhiim ah waa gartay dib haddaan u milicsano nidaamkii hore oo 7423 oo kale laleeyahay waa mid gacantay ku hayeen ama aada ugu janjeeray dadka gumaystayaasha dalka soo maray waxyaabaha loola diriraya waxaa kamid ah in uusan ku boorinaynin ama ardada wax baranaysa wadaninima markaan u imaano nidaamkii ka dambeeyay 844gii ka barantaasi anagoo ka eegayna dhankan oo kale musuqmaasuq oo kale hadii la yihahda ruuxu in wadankiisa wax walba u hori karo wax walba wadankiisa uu samayn karo uu iska ilaaliyo kelinimada waxaa la yihahdo systemka 844 markii ugu horeyso la bilaabayo maskaxda ku jirto waxay ahayd
lagu soo daray subjectyaal oo local ah macnaha oo waxyaabaha ka dhaca Kenya historyga iyo civics waxa la dhihi jiray maxaa la dhahaa maadiyaal oo music iyo German iyo maxaa la dhahaa languages French iyo Arabic waxba lagu daray religion I think lagu daray marka laakiin wax waa bateen macnaha ilaa 12 subject ay la qaadanay waxaa kaloo dhacday arrimaha homework ama shaqada la siiyay zaidka oo soo hagaajiyeen ardayda guriga ku soo hagaajiyeen badatay sidaad ogtahay adduunka dawladda ugu nidaam fiican xagga waxbarashada waa Finland ma qabaan wax la dhahaa homework waqtiga la barta wax la bartana waa adiga 3 saacadood maalintii ama 4 saacadood maalintii ay wax la bartaa waa dadka adduunka ugu fiican xagga waxbarashada marka adaa la fiiriya in systemka la bedelo systemka zaid culays u noqday macallimiinta culays ku noqday maxaa la dhahaa waalidiinta culays ku noqday ardayda culays ku noqday marka in la bedelo waa fiican laakiin marka la bedelo sida u sheegay mashiimuha waa in laga soo inta laga bilaabaa macruuf waxa laga bilaabaa systemki in la hagaajiyo oo lagu push gareeyo bis waxa laga bilaabaa in la train gareeyo dadka wax bari lahaa marka waxa waaye marka meeshii laga bilaabi lahaa problem noqotay macallimiinta diyaar ma yihiin waalidiinta diyaar ma yihiin dalkii budgetka asaga ma haysta because budgetku waa isbedelaa waxa isu bedelayaa hadda farsamo baraya waxa u baahan tahay equipment iskuul kasta waa in laga hela computers waa in laga hela internet waa in laga hela woodwork workshop oo maxaa la dhahaa baawge waa in laga hela koronto waa in laga hela ufahansoma si wacan arrimahaasi korontada iyo kombiyuutarada hataan u imaano mheshimiwa iskuulka waxaa jiray ama ololihii doorashada xisbiga Jubilee waxaa ka mid ahaa in iskuulada la geeyo oo kombiyuutara ama laptopya ee caruurta wax ku bartaan si loola jaan qaado dhanka horumarka teknolojiyadda la sameynaya arrintaa ka waran adiga sidaad u aragtaa adiga mudane maxamed xuseen ahaan arrintaa waa arrin mataqaanaa fail garowdi ama lagu khasaaray waxay iska ahayd maarata campaign hadallo campaign maarata ugu dhexay maay iska ahayd diiwaangelinta inkastoo lacag badan ay ku dhumeen oo lacag badan la geli laakiin hadda wax natiije ka muuqda ma laha maxay ahayd haddii sidii ay u ballan qaadeen ay u dhici lahayd ardadii galaysay fasalka koowaad sanadkii 2013 ayaa la rabay in lagu bilaaba sanad kastoo ku xigana waxay ahayd in ciyaalkaas la siiyo hadda marka waxa weeyaan ciyaalkii oo 2013 ahay class 1 ahay fasalka koowaad ku jira meeqaad joogi lahayn maanta waxay joogi lahaayeen 5 Soomaal marka waxaa la rabay dhammaantood marka maaragtay class 1 ilaa classka 5aad ama classka 6aad ama 7 inay haystaan baa la rabay computerkii oo macallimiinta ay wada yaqaanaan ardaydana ay wada bartaan arrinta wax weyn bay mataqaan haddii sida ay marka hore loo sheegay haddii loo samayn lahaa wax weyn bay tari lahayd laakiin ma dhicin waxaa laga yaabaa hal sano keliya wax macyaarka la siiyey hal sano baa la siiyey aan filaya mase 2 sano hal sano baa la siiyey marka ciyaalka kale ma haystaan macallimiinta waxaa laga yaabaa haddii hadda wax yar la bari waa iska hilmaameen marka waxaa weeyaan ballanqaadyaha faraha badan oo waqtiga siyaasiyiinta ay mataqaana doorashada ay rabaan ay dadka u sheegaan inta badan ma fulaan shacabkana ayagana uma lahan mataqaana hadda yacni dhaqan uma lahan inay ay weydiiyaan dadka siyaasiyiinta madaxdooda ah war shantii hore ayaad ii ballan qaaday waxaan inaad ii samayso 1 2 3 4 5 maadan samaynin waxaan kaloo ballan qaaday maxay yihiin kuwii hore maxad ugu soo bixi weyse amaba ay ka tagaan dad cusub ay raadsadaan ma dhicin waxaa laga yaabaa Jubilee doorashadii hore ee ballanqaadkan ay ahayd 2013 ay ahayd ballanqaadkii waa fail garowday muusan qabsoomin haddana doorasho labaad ma heleen marka meesha waxaan u arkayaa inay tahay khasaaro lacag badan ay ku luntay waqti badan oo ku lumay Mr. Salah waxaa jira arrintan isla laptopyada iyo kombiyuutarada ee xisbiga talada ay Jubilee u ballan qaaday dad dhaliilsan oo ah mudnaanta la siiyey in ay jiraan waxyaabo ka muhiimsanaa muhiimad gaar ahaaneedna shacabku lahaan lahaa in la siiyo tusaale oo kale gobolka waqooyi bari haddaan eegno iyo county kale dalka xitaa fasalo ma lahan caruurtu waxay wax ku bartaan geedaha hoostooda taa iyada ka waran in taa waan ka dhexgalaya intaan Dr. Salah halgelin fasal hadda noodistaan meel kasta waa laga dhisi in fact hadda dhibka jira waxaa weeyaan fasalada ayaa meel kasta laga badiyey Saalaxna wuu soo arkay asaga markii doorashada campaign-ku soo arkay laakiin ma lahan macallimiin waxay hadda mataqaanaa yacni loo arkaya inay muhiim tahay iskuullada in la yareeyo si ardayda mataqaanaa meelihii macallimiinta ay ka heli karaan iyo facilitieski mataqaanaa qalabkii loo isticmaali lahay tacliinta loo heli lahay la isugu keena laakiin fasalada yacni jirki macnaha isha dhismaday jidaaradii
markas way yeelaan laakiin weli sanadkan aan ku jirno 2019 wajeer meel ahayd ayaan filaya oo warbixin laga diyaariyay caruur getosis waxay ku baranayeen markii dambe mheshimiwa rashiid qaasim aan filaya in wax u ballan qaaday ama wax la dhisaya countiyada kale dalkan saas oo kale bokood oo kale markaan eegno turkana iyadan way diri karaan ayaan filaya mheshimiwa intaad ka ogtahay wajeer oo kale midaan iskuulkan bariga wajeer inuu ku yaalaa ayaan filaya ma xasuustay deegaanku ahaa haye horta saan u arka aniga badi focuska kenya waxaa waaye inay iskuulka la geeya iskuulkaa la qaadaa oo degmada la geeya ardayda lama qaado iskuulka lama geeya macnaha systemka adduunka jira waxaa waaye inaan hal iskuul ku yaalla magaalada dhici karta laakiin ardayda lasoo qaada oo transport la siiya maxaa la gaadiid la siiya lagu qaada baasyaal lagu qaada oo la geeyo iskuulka oo laga soo celiya system adduunka jira saas waaye laakiin dhibka anagana haysto waxaa waaye meel kasta geed kasta iskuul waaye laakiin meeqaa macalimo loo baahnaanaya haddaa geed kasta hoostiis iskuul laga dhis marka taa waa su-aasha aad mheshimiwa aad ka majiibaha marka laakiin haddaad fiiriso marka ay jubilee ay keenaysay computeran hala geeya iskuulaha fikraad oo waxay ahayd popular macnaha fikraad oo dadka qancinaysa ahayd laakiin fikraad oo practical ma ahayd fikraad oo ka la qaban kara oo maxaa la fulin kara ma ahayd waxaad og tahay iskuulaha badi kenya waxaa ku yaallaa meelaha koronto lehed computer korontolaan shaqeynaya weli lama maxaa la invention noocaas weli u imaanin qatar waa loo baahan yahay waa loo baahan yahay maanta macnaha waxaa loo baahan yahay koronto meel kasta oo maxaa la iskuulaad ka jira marka koronto haddaan jirin computer ma shaqeynayo so haddaad laptop badaas geysa koronto male tan labaad macallim haddaan jirin garanayo computer macnaha macalinka waa jiri kara macallin oo history computer ma baraayo macallin oo IT garanayo haddaan jirin computer project ma shaqeynaysa haye haddaan jirin meel store oo alaabta ida lagu kaydin kara oo security leh oo alaabta ida la xadaynin ma dhacaysa maxaa so waxyaaba badan ay ka fikireen waxyaaba badan oo ay zaa'id ugu maxaa la ugu niqaashin inta arrintaas ay keeneen marka waxaa ku feelgarowdi kow meelaha barkood maba leh koronto ma leh meelaha barkood macallimiin ma leh meelaha barkood maxaa la dhahaa markii la geeyb waa la waxaa la computerihi waa la xaday ama waa la dadka waxaa u fahmeen in la qaybsano hagaag arrinta kale mheshimiwa maxmed uu ka dhawaajiyay oo ah iskuullada la furaya ee soo batay oo ah waxaan aragnaa xildhibaan walba markuu soo galo deegaankii laga soo dartay 2 ilaa 3 iskuul oo kale laga furo qodob doodo miisku soo saaray ah in la yareeyo fikrad noocaas oo kale xitaa madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto maruu joogay deegaanka Kibra uu ka dhawaajiyay uu yiri iskuulo ama dhulal hadda iskuul hor leh lagu dhisay ma haysano ee aan ballaarino kuwii hore taa waxaad kaga darsanaysaa 2015 ayaa ka lugayay waxaa ka lugayay sax walk of hope gaartana ilaa waxaan lugayay boda marka meelaha badan aan tagnay meelaha barkood oo la yaabnay waxaa waaye magaalada waxaa jira 5 kilometer 5 kilometer isu jira 5 kilometer iskuul ku yaal iskuulka macallin male marka iskuulkii haddaad macallin lahayn faa'iidadiis maxaa waaye iskuul dhisan macallin leh waxaa arkaysa meelaad tegaysa iskuulka hal macallin leh meel waxaa jirta nooga sheego la dhahay okay class 1 to 8 hal arday fasal walba hal arday ayaa leeyahay marka haddaad fiiraysa fikradan oo ah in iskuulaha la yareeyo oo ardayda loo hagaajiya gaadiid oo ka qaada gurigooda oo geeya meelaha iskuulaha ay ka jiraan oona soo celiya taas muhiim waaye kow macallimiina loo wada helaya iskuulaha haddaa la isku wada dara macallimiinta ku filnaanaya budgetka ku filnaanaya ardayda oo meelo dheer degan meelo fog degan waa loo helaa hab lagu geeyo iskuulka marka arrinta arrin socon karta hagaag marka waxaan rabaa nidaamkan cusub hadda bilaabmaya inaan u gudagalno diyaar su-aal ay ahayd diyaar ma u nahay mar ayaad ka dhawaajisay dhaliil kale oo ay soo jeedinayaan danayaasha waxbarashada sida macallimiinta naad oo kale way jirtaa mheshimiwa markaad eegtid rajada ah waxyaaba hadda la sheegaya nidaamkan cusub oo ah qofka wax uu ku wanaagsan yahay ayuu sameynayaa shaqa la-aanta gobolka waqooyi bari ay ka jirto hal ma noqon kartaa xal waa noqon kartaa laakiin wax kasta waxaa maaragtay yani caqaba u keenaya nidaamka siyaasadda dalka kenya waa dal mataqaanaa oo hadda mataqaanaa koryahay dhaqaalihiis mataqaanaa ugu hooseeya economigiis ugu hooseeya marka loo eego mataqaanaa Europe iyo Asia maaragtay meelaha qaarkood loo eego dadweynaha ku nool Kenyana maaragtay yani waa aad bay iyaga u tarmahayaan hadda waxaa lagu qiyaasahayaa ilaa 50 milyan ay yihiin
oo sanad kasta waxbaa kusii kordhaxay laakiin shaqo abuur ma jira shaqo lama abuurahay haddii ardaydii iskoolaha ay aadaan wax kasoo bartaan si kastay tacliim maarta usoo bartaan hataa haddii ay soo bartaan skills fiican ay soo bartaan xaggay la aadayaan waa su-aasha yurub waxay isugu yimaadeen oo ay u samaysteen European Union waa in danaha mataqaanaa shacabkooda ay kor u qaadaan africa waxay hadda mashquul ku tahay ninba nin kale inuu riixa dowlad kale inay riixda inay xadduudyada la xira tacliinta kenya waxay ku jirtaa mataqaana africa hadda marka la yidhaahdo meesha waxbarashada aad ugu fiican ku jirtaa marka loo eego africa laakiin waxay ahayd dadkan wax baranahaya markay ka soo baxaan jaamacadaha oo tacliinta sare ay ka soo baxaan xaggee aadayaan waa inay dowladda ka fikirtaan waa inay siyaasiyiinta ka fikiraan waa in mataqaanaa boodhaaska la furo oo boodharles laga dhiga hadda anaga kenya waxaan jiraan la nahanay 5 waddan 5 waddan waxaa la rabaa inay shacabka kenyaanka wax barteen ama ganacsanayaan ay u tallaabi karaan waqti kasta marka haddii yurub marka waxay ka faa'iidaan waxaa weeyaan meel kasta ay shaqo u doontaan africa ay imaanayaan asia bay aadayaan yurubkooda kale ay aadaan australia bay aadaan canada bay aadaan maraykan bay aadayaan annaga iska daa inaan yurub iyo maraykan aadne xataa yacni dalka jiraanka inaad u gudubto waa ciriiri caqabado badan baa ku saaran qofkii waxaa weeyaan immigration ruleskeena ayaa adag maxaan ka hadlaa dowladda afrikaanka mogtahay marka waxay ahaan lahayd siyaasiyiinta hadday maarata tacliinta inay la badi ay rabaan oo ciyaalka ka soo baxay primary kulli ay secondary aadaan secondary waxay ka soo baxay inta u badan 50% ka badan ay jaamacad aadaan la raba waa in shaqo la abuuraa waa warshado in la sameeyo warshadihii hadda kenya ka jiri baa hadda la xirayaa in badan oo u guurihaya wadamo kale ma taqaana sida South Africa iyo waxay u guurahayaan afrikaanka kale marka waxaa la rabaa waa ardayda way soo baxeen xaggay la aadayaan certificate-koodii hagaag qodob kale oo dooda ah oo ah in wadamada ay midoobaan miiska soo saartay laakiin barnaamijka inuu nagu sii ballaartay ayaan ka cabsi qaba daqiiqada koobanna in ay harsan yihiin waa lii tilmaamaya muhiimada arrintaas haddii aan ka bilowno dhanka taariikhda markaan dib ugu laabano markii xornimada la qaatay wadamada africa waxaa jiray east africa education system la yirahda walow sanado ka bacday lagu kala tagay taas haddii aad xasuusatid wax yar haddaad noogu sheegtid iyo haddaan u gudubno dhankaan iyo dhaqaalaha dowladda ay geliso wasaaradda waxbarashada ama tacliinta dalka haddaan ku hormaro 2017 iyo 2018 budgetkii waxbarashada waxaa loo qoondeeyay 442 bilyan waa 2017-2018 budget waxbarashada sanadkan 2019 iyo 2022 dhaqaalaha loo qoondeyn waa 280.9 bilyan oo aad moodid in bar laga soo diray labadii sano hore wixii loo qoondeeyay intaba isku darso hadday East Africa Education System dhaqaalaha dalka uu qoondeeyo waxbarashada iyo halkan u socno East Africa Education System waxay ku dhamaatay markii la keenay systemkii 477642 Kenya keentay Tanzania markay qabsatay oo shuuci ah Uganda wali waxay qabsatay IGCC ka socotay Uganda oo tii oo Ingiriiska marka system sidaas u kala tagay sidaas u sheegay mashmuuna borderkii waa la kala xirtay inkastoo magaca East Africa la isku leeyahay laakiin kama shaqeyn kartid meel oo East Africa kamid ah inaad iska tagta subaxdii shaqo ma raadsan kartid waa systemku sidaas u adag marka tan labaad education budgetka okay size-kiisa waa maxaa la waa xogo macnaha waa haddii loo fiiriyo budgetka kale oo hay'adaha kale loo isticmaalo waa lacag badan kuma qarash badan la geliya laakiin isticmaalkii macnaha habkii loo isticmaali lahaa efficiency ma laha macnaha زائد لو حدا مس بدل كجرا زائد لو مسألة كتجريا وبدلكي العقد أي تجي لهاد سكولها أي تجي لهاد administration لو بحيا ministry of education شغالة هذا كل حابة مع لها percentage جون العقد إذا عنا مركا إن كستو بجدهان أتكون فيلينيا هذا لو فيريا بجد ذلك وحا نبقى إيمانا وحواي misuse بدنا جرا ذلك كان وقرنا مسق iyo bad governance ka socdo marka taas aad dib keenaysa mid jirta aad weydiisay oo ahayd hada waa iga bood ma garanayo tii saddexaad oo weydiisay xaalad dalka halkaan ku socono iyadoo adigoo ka duulayay lacagaha loo qoondeynayo wasaaradda waxbarashada CBC marka waxay u baahan tahay budget ka weyn kii hore oo 804 CBC waxay u baahan tahay materials waxay u baahan tahay dadka macallimiinta kulli retrain gareey afaan امتحانها اللي قاعدة امتحاني هرمة امتحانه وهو سكول قاعدين امتحانه ما هن أكاديميك امتحانه بدي فرصة واعي والحقوق بهن دوتها وحياة بدن ومحل وبجت محل إنه قدرة تاسع هذا ديارو من هذا كوامق ليس أنا دي بروك وهذا أي العاب أي جريمة
hay'ataada wax ku darsan waxaan ku darayaa arrintan horta maxay budgetka saad sheegaysa kulley waa la yaab maaragtay in sanadkii hore uu ka badnaa mataqaanaa midka hadda wixii hadda loo qonday 400 iyo 200 waa lacag maaragtay aad u fog waay laakiin waxaad moodaa maamulka macallimiinta iyo sheeg wasaaradda tacliinta in priority-ga mataqaanaa aynan aad u fahansaneen waxaan u baahannahay annaga hadda waxaa weeyaan macallimiin baa loo baahan yahay iyo qalabka loo isticmaala tacliinta loo isticmaala laakiin waxaad moodaa waxyaala aan muhiim ahayn baa lagu bixiyaa qarashkan noodisaan oo kalaatay priority-geeda waa ka duwan yahay meelaha kale dhulka beeralayda mataqaana waa ka duwan yahay waxay u baahan tahay noodistan badi waxaa weeyaan maadaama security iyo transport problem uu jira oo meel kasta aan la tegi karin waxaa loo baahan yahay iskuulo badan oo boarding in la hela boarding facilitieska markaan ugu bixiya macallimiin tababar fiican in la hela oo ardayda haddii meelihii tuulooyinkii oo fogfogaa haddii aan koronto aan laga helaynin meelaha korontan laga heli kara securityga macallimiintan laga heli kara qalabka mataqaana la isticmaalaya in loo heli kara koronto loo heli kara waa in xoog lagu bixiya marka inkasta oo system national u yahay oo wadani mataqaana yani uu saameynayo laakiin haddana waxaa weeyaan inay meel kastaba danaheeda iyo maaragtay yani waxyaalaha iyada khaas u ah in loo isticmaalo marka siyaasiyiinta ha noqdeena macallimiinta gobolada ka shaqeeya ha noqdeena in arrintan iyagana ay si gooni uga hadlaan waa jirtaa programme la sameeyey sida nacone ka kalaatay waa jirtaa laakiin ilaa hadda maxaa faa'iido oo laga helay aniga kulleyba ma garanayo waxaa yahayd ciyaalka oo mataqaanaa fahamka fiican leh oo waxbarashadooda tayo maaragtay yani aad fiican u leedahay in la kaalmeeya inay kuwa masaakiinta lasoo aruuriyo inay meelo fiican maarata loo sameeyo oo hoygooda iyo waxbarashada looga sameeyo si hadhowtay jaamacadaha ay ku aadaan oo loo taageera waxaad ogsoon tahay tacliinta ma hoos imaada dowladaha countiga waxay hoos imaadaa dowladda sare dhexe ay baa hoos imaadaa marka maadaama tacliintii ay dowladda dhexe hoos imaanaysa waxaa la rabaa arrintan dowladda in ay la kaalmaysata countiyaalka maadaama dhibka mataqaanaa qofkii garanaya waa dadkii mataqaana maamulka gobolada gobolada ay waxay shaqo ku leeyihiin tacliinta hoose naasariga nafteeda haddii si fiican loo soo bilaabo oo wanaag fiican maarata yani caruurta yani lagu soo tarbiyay arrintan ii sheeg middan oo secondary iyo jaamacadahana tayo weyn bay ku lahaan doontaa hadda waxaad arkaysaa ciyaalka nairobi joogaan oo naasariga markay ku jiraan luqadda ay ku hadlayaan ingiriiska ama swaaxiliga si fiican bay dadka u fahmi karaan laakiin waxaad arkaysaa cunuga jooga kalaaska 5aad ama 8aad northeastern oo aanan jumlo kaamil of ingiriisa aanan ku sheegi karin soo dhibaato maan marka waxaa fiican maadaama countiyaalka fursaddan ay haystaan inay macallimiin fiican qortaan oo ay u sameeyaan arrintaas dadaal fiican ay u sameeyaan si ay mataqaana ciyaalka tababar fiican naasri maxay 3 sano kotay ku jirayaan ama 4 sano ku jirayaan in arrinta laga soo dhiso ayaa fiican gabagabadii aad ayaan u jeclaan lahaa 3 su-aalo kooban jawaab kooban inaad iga siisaan vision 2030 ayaa jira manhaj cusubna hadda waa la galay tijaabinteedii imtixaankii ugu horeeyeyna grade 3 waa laga qaaday dhaqaalaha loo qoondeeyay budgetkan sanadkan 2019 waan aragnay halkii la rabay muu soconaa gobolka waqooyi bari sida ugu faa'iidaysan karaa 2030 oo loo baahan yahay injineera farsamada yaqaana suurtagelin doona halka dalku uu higsanayo muhiima adigoo aad usoo koobay walahi ani kulleyba uma malaynaya maadaama ilaa hadda mataqaan dood ay ka jirto macallimiintii iyo hay-adihii mataqaana mathala macallimiinta ay ka doodayaan li arrintan ma la diiwaan gelin kara ay leeyihiin doorashada ay soo dhowdahay 2 sano kadib doorasho dhici doonta waxaan moodaa arrintan maanta dhibaato badan maanta ay soo food saaran tahay muhiima fikirkaaga ku aadan qodobkaasi okay taa waxay ku xiran tahay horta tayada macallimiinta kor loo qaado maana hadda dadka oo D+ iyo C+ qaataan waxay ku hooseeyaan macallimiin noqdaan waxaan rabaa dadka A iyo B qaataan inay macallimiin noqdaan macallimiinta ay noqdaan dadka ugu mushaar fiican haddaan rabto inaad vision 2030 iyo maxaa rabaa engineer fiican iyo dad innovation keenaya iyo CBC waxa kullu waxay ku xiran tahay tayada macallimiinta hoos u dhacda wax soconaa bale hadda waxaa waaye dadkii ka dhacay KCPE KCAC ka dhacay ayaa macallimiin noqda waana ka muuqataa dad fiiriso sababta ugu horeysa oo dadku maxaa la dalka ugu hooseyna waxa waaye dadka wax baraan ahayn dadkii maxaa ugu fiicnaa wax bari lahaa isla arrintaasi ee ah gobolka waqooyi bari tacliinteeda inay hooseyso jaamacado kala duwan ayaa dalka ka jira kuwa diimo ku abtirsada way jiraan haddii la heli lahaa dalku ay ka jireen jaamacado islaami ah
doorkay ka ciyaari lahaayeen waxbarashada gobolka waqooyi bari in sare loo soo qaado hadday noqoto macalimiin in la tababara hadday noqoto in la sameeyo baaritaano kala gedisan dhibaatooyinka oo islaami ama hada ama public ha ahaadana waqooyi bari waxaa ka jirta jaamacad gaarisa ku taala Garissa University marka dhibka jira ma aha jaamacadaha jiridooda macnaha jaamacadaha waxa socday hadda sanadihii soo dhaafnay waxaa waaye in la yareeyay qarashkii jaamacadaha horta ugu horeysa budgetka la siin lahaa laga yareeyay waxaa meesha laga bixiyey parallel programkii oo dad badan ay ka faa'iideysanayeen maxaa dad badan shaqeynaya ka faa'iideysanayeen waxaan jirin budget oo loogu talagalay researchka marka jaamacadaha inkastoo ay jiraan waxyaaba kale ayaa loo baahanaya si jaamacadahaas ay wax ku qabtaan laakiin jaridooda waxay keenaysaa in ardayda ay wax ka bartaan magaaladii ay ku dhasheen oo maxaa la kusoo koreen ama qarashka hataa waalidka ugu baxa inay maxaa lahaa ay ardayda ay ka bixiyaan ayaa yaraanaya marka waxay la tahay waa faa'iido soo korortay arrintaas kulley waxaan u arkaa si kalaan u arkaa dhalinyarada ciyaalka markay korayaan ayaa fiican in tababar fiican laga soo siiyo ka yar yihiin la soo siiyo nurseryga primaryga canuga haddii tababar fiican waagaas u soo hela oo luqadda iyo laga soo dhisay iyo habka mataqaana waxbarashada laga soo dhisay jaamacadda meeshuu ka aadi karaa ama ha noqoto jaamacad wadani ah ama dibid ha noqoto diini ha noqoto maysan noqonin diin hadda kulliba haddii qofka jaamacad gala yani maadooyinka ay bartaan kulli diin maahan diin laazim maahan يعني قفكي ديمك برا هون وهذا كرا جامعة دين واجران لكن مهمة ده وحواي وحقات برنا مكو أنفعيسة إن دين توي أنفعيسة قفك إنه برته ودقار وحويها بلا وحيستان دين تلا برته إن هن تعلين عن أين هن وون حساب إيو تختار نمي إيو إنجنير كلها مارتي أي تاي وحبرشته دين تنا وحبرشه واي قفك هدوب علم ليه هي وحن بيمت تقنكوا في هذه نساء لكن مهمة ده وحواي جامعة إن هذا جالس عقوتها جالس يلبس بس أجرته جامعة الإسلامية واجران مثلا سيدة كلها تراف واجران أمة واجرتها إن محاي دور باجرة كوكر أو فربنا واجرة عيالك بركوا حلم ده امتحان كوي كسر دعين هاي سكول كي أيا وحيسمينا سيرتيفيكت وحيسمينا دبلومة وحيسم إلى الجامعة هذين أنت أي برن لهاين سكيلز أي برن لهاين السوق فون فور ليفا أو دي بلاس كهاي سكيلز ببرن كره هذا عالم كذا متقنا أمريكا إيو أستراليا إيمان هذا أدب waxaa lagu weydiinaa waxaa weeyaan farsamo maxaa taqaanaa gacan maxaa ka taqaanaa waana ka mashaar badan yihiin kuwaana mataqaana xafiiska la fariisanaya blue collar job waxaa ka faa'iido badan oo ka lacag badan white collar job haddii markaa ay caruurteena fahmi lahaayeen wadii plus aad hesho ceeb maahan laakiin skills bara waxaad gacmaha ka samayn karta bara garash furo maxaan ku idhahdaa electrician noqo plumber noqo arrimaha mataqaana ardayda inay fahmaan muhiimtaas waay laakiin 4 sano kale haddana mataqaana certificate soo sameey diploma soo sameey waqti badan kusoo lumi jaamacadu ka soo baxay mastaas u haysaa af ingiriiska uma kara gabagabadii mashuma taladaadii ku aadan sida gobolka Qoybari hadaynu nahay ama Soomaalida dalka qayb uga noqon karno vision 2030 aan uga faa'iideysan karno nidaamka cusub waxbarashada la bilaabay ee loo guuray blue collar job lagana guuray white collar job taladaadii ugu dambeysay Soomaalida waxay u baahan tahay in horta ay wada fariistaan oo tashadaan maxaa naga qaldan in la isweydiiyo maamulada mataqaana saddexda gobol oo countiyalka ee Mandera Garissa Wajir ma isu yimaadaan arrimahan ay guddi u bixiyaan dad mutacallimiin ay arrintan siiyaan baaritaan la sameeyo war xageey wax ka halawsiin hadday meelaha halawsiin oo gaps ay jiraan isaan u buuxin karnaa national government wixii laga rabo waajibkeeda haddii ay gudin waayso anaga ma buuxin karnaa maxaan u baahanahay national government haddaad tiraahdo shaqada anaa qabsan karo waa lagu soo wareejin karaa macnaha tacliinta dawladda dhexe ay haysomaan hadday yiraahdaan countiyalka anaga ayaa qabsan karan maadaama arrimo oo anaga dala xiriiro oo daraha anaga aan naqaan anaga samaysan karan waa loo ogolaan karaa laakiin codsiga la rabaa inay samaystaan ayaa laga rabaa mid kale waxaa la rabaa corruption ka faraha badan oo Soomaaliya waa jira oo talada naga wareeri in laga naqaash laga hadla laga doodo maxay ciyaalka marka ay yar yihiin oo ay 4 jir yihiin 5 jir yihiin baa musuqmaasuqa ay baranayaan waalidkoodii oo wax isdaba marinaya iyo habeen maalin joogaan boobkii bay arkayaan qaladkii bay arkayaan macallimiintii bay arkaysaa qishka sameynaya wixii dhan bay soo arkayaan ciyaalka markay weynaadaan oo ay gaaraan 20 sano ma rabaan inay si toos u shaqeeyaan ma rabaan inay si fiican oo wada fiican wax ku raadsadaan waxay rabaan si shortcut ah si ma arday qaldan si wada mataqaanaa fudud inay wax ku helaan marka meesha mustaqbalkeena looga baahan yahay in wax laga bedelo halkaas aan arkaanay mashuma gabagabadii اوكي تلاقي لو خطوه كان وهلا كو تن معلمينتا iyo arrimaha waxbarashada waqooyi bari siyaasadda ay ku xidhan
macalin promotion ma helay asoo siyaasiyiin ku xirneen macalin lagama bedeli karo iskuul isagoon maxaa transfer lama siin kara isagoo siyaasi aan ku xirneen marka dhibka imaanay waxaa waaye dad oo macalimiin ama headmasteryaal oo iskuulkoodias waay helay 5 sano soo dhaafnay weli iskuulka asaga ay joogo oo weli waxba aan wax tilaabo laga qadaa jirin so ugu horreysa waa inay waalidiinta ay la xisaabtamaan macalimiinta iyo headmasteryaasha midda labaad waqooyi bari dhibkana haysto oo hadda maalin dhaweed waxaa afka ku dhuftay mogoha maxaa la wasiirka waxbarashada imtixaanka oo qash la geliyay heshiimo alwaashe qashta qashta asaga waxaa geliya hadda siyaasiyiinta waa soo boodeen waxay dhaheen anaga waxaad shuqul ku maliya laakiin runta daa la sheegay see ku dhacday in intaasoo iskuul oo ku yaala waqooyi bari inay waaya helaan sanad kasta oo maxaa la imtixaanka markaad soo baxa oo haddana marka aad soo baxa aan filanaya in waaya soo bixi doonto ana ka danqanayn annaga horta dad danqanaa ma isla xisaabtama kala midin marka waa inaan serious ka noqono arrimaha waxbarashada intaasaan ku talina aad baad umahadsantihiin dhammaan barnaamijkii xiisaha badnaa ee martida toddobaadka oo muuqaalkii ugu horeeyey ee marti noogu hay saalax cabdi sheekh iyo weliba mhashiime maxamed xuseen qara su-aasha waa su-aal culus ee ah gobolka waqooyi bari dhowrkaasi iskuul sanadka lasoo dhaafay 2018 maxaa keenay in wine la siiyey waa su-aal qof walba u taalo oo ah inuu ka fikiro jawaab waafi ama jawaab habboon u helo barnaamijka waxaa soo saaray halkana idinkala socodsiinaya anigoo ah Suleymaan Sharif Jimcaale Suleymaan Bukhari dhammaan inta ka qayb qaadatay asxaab fara badan ee kamera gadaasheeda taagan oo siyaabo kala gedisan gacna u geysteen waxaan leeyahay waad ku mahadsantiin tan intaan inuu kaga kulmi doono toddobaadka soo socda barnaamijka mid ka xiiso badan iyo weliba marti xiiso badan kuwa maanta inoo joogay oo kale waxaan idin leeyahay sida iyo amaana allah ismaqal dambe oo xiisa leh Iftiin FM ayaa muuqaalada si bogogooda kala gedisanna kala socon doontaa